sidee baa la isku barbardhigi karaa magaalo iyadu jirtay 393 sannadood iyo mid iyadu jirtay wax ka yar 150 sannadood. magaalada New York City oo si kooban loo dhaho New York waa magaalada ugu dadka badan Mareykanka, taasoo tirada dadkeeda lagu qiyaaso in ku dhow 9 milyan oo ruux. waa magaalo lagu tilmaamsado ganacsiga, dhaqaalaha, miidiyaha, farshaxanka, faashanka, cilmi baadhista, tiknoolajiyadda, waxbarashada iyo madadaalada adduunka oo dhan. Hargeysa. magaalada Hargeysa Caddey oo si kooban loo dhaho Hargeysa waa magaalada ugu dadka badan Somaliland, taasoo tirada dadkeeda lagu qiyaaso in ku dhow 1 milyan iyo badh ruux. waa magaalo ku caan baxday nabadgelyo iyo xasillooni buuxda, dad soo dhaweyn wanaagsan, buucda hal abuurka Soomaaliyeed, fanka iyo suugaanta, madadaalada iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna quruxda badan dhulka ay Soomaalidu degto oo dhan. intii ay dhisnayd magaalada New York waxaa sanadba sanadka ka dambeeyay magaaladaasi Ameerika ku taala madaxdii soo martay ay marba bilic iyo qurux ku soo kordhinayeen si ay magaaladoodu u noqoto saldhigga dhaqaalaha adduunka oo dhan. Lincoln Tunnel waa god ay baabuurtu marto oo hoos mara webiga Hudson, kaasoo isku xidha Weehawken, New Jersey iyo Midtown Manhattan ee magaalada New York. dhererkiisana lagu qiyaaso ilaa 2 kiiloomitir iyo badh, looguna magac daray madaxweynihii 16aad ee Mareykanka soo mara, Abraham Lincoln. celcelis ahaan baabuurta marta godkan maalin walba waxaa lagu qiyaasaa inay dhan yihiin ilaa 120,000 oo gaari, kuwaasoo ka dhigay godkan ka ugu mashquulka badan ee ay baabuuri marto adduunka oo dhan. inkastoo la sheegi karo guula baaxad leh oo ay New York gaadhay sida inay tahay suuqa dhaqaalaha adduunyada iyo hoyga jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ama xarunta qaramada midoobay, waxaan la iska indhatiri karin inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee dadku isku dilaan dil iyaga dhexdooda ah iyo dil ay iyagu lafahooda u geysanayaan midku doonaba ha ahaadee. cudurrada aan rajada badan laga qabin in laga bogsado sida macaanka, dhiigkarka, beer huryaha iyo HIV/AIDS-ka oo marba marka ka sii dambaysa sii badanaya, walwalka iyo walaaca iyo isku buuqa oo farabaas ku haya dadka degan magaalada New York. walow ay Hargeysa soo martay xilliyo iyo xaalado kala duwan sida dagaallo ay ku riiqdeen kumanaan kun oo ahaa dadkii magaalada deganaa ayna ku barakaceen kumanaan kale, waxa magaalada haysta dhibo fara badan oo ay ugu horeeyaan biyo la'aan baahsan, wadooyinkii oo jajaban, korontada oo aan ku filnayn, shaqo la'aan haysata badi dhalinta ku nool magaalada, qashin buux dhaafiyey magaalada iyo adeegyada bulshada ee aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka oo aad iyo aad u liita. waxa keli ah ee lagaga bixi karo dhibahaas baana ah dadka u istaaga danahooda kana xorooba wax allaale iyo wax kastoo liddi ku ah horu socodkooda bulsho si ay ula tartami karaan dadka ay isku midka yihiin ee Ilaahay kula uumay dunida. haddiise aanay taasi dhicin oo ay dadku si wanaagsan ugu dhaganuglaadaan qoqobka ay dhex dhigayaan dadka danahooda gaarka ah ka horumarinaya danta guud iyo siyaasiyiinta dib u dhaca jecel, weligeen iyo waaqeen mugdi baa wehel inoo ahaan doona.